maalintii shalay wixii ka dhacay magaalada Dooxa oo caasimadda dalka Qatar ah waan ka dharagsannahay. xasuusnow dhowaan madaxweynaha dowladda Mareykanka waxa uu yimid wadamada Khaliijka waxaana uu laabtay isaga oo trillion maalgelin ka helay dowladaha Khaliijka. Qatar 400 milyan oo dollar diyaarad joogta ayay ugu deeqday madaxweyne Donald Trump. si sharaf leh ayaa loo soo dhaweeyay. xitaa haweenkii reer Qatar waatii bandhiga ay sameeyeen oo mas'uuliyiinta dowladda Mareykankana ay dhex marayeen goobta ay labada dhinac ay kaga sugnaayeen haweenkii reer Qatar markii bandhiga iyo soo dhaweynta ay ka qayb galayeen. aan u soo laabano weerarkii shalay. warbaahintu waxay baahinaysaa in fursad istiraatiiji ah ay Israa'iil ka dhex aragtay kulankii ka dhacay magaalada Dooxa oo dalka Qatar oo u dhaxeeyay xoogagga iska caabinta ee Xamaas hoggaanka wada hadalka ku matalaya kuwaas oo ku shirsanaa magaalada Dooxa. macluumaadka soo baxay waxay sheegayaan in wax dabin u eg loo diyaariyo xoogagga iska caabinta ee Xamaas laakiin toodii ay wax ka dhinayd. aan tusaale kula wadaago. Mareykanka xilligii Iiraan weerarka lagu qaadayay waxa uu sheegay in wada hadalla ay socdaan suuragalna aysan ahayn in Iiraan weerar ay la kulanto, laakiin markii weerarka uu soo dhawaa waxaa jiray hadalla adag oo madaxweyne Trump iyo madaxdiisaba ay adeegsanayeen. tusaale waa tii bilowgii uu yiri muddo 60 maalin ah ayaad haysataan, waa inaad jawaab cad aad bixisaan. laakiin dhamaadkii maalmihii 60 maalin ah waa tii weerarka u dhacay oo Israa'iil weerarka kadiska ay qaaday iyadoo lagu balansanaa in lagu kulmo dalka Cumaan. sidii oo kale marka waxa soo baxay xoogagga iska caabinta Xamaas in madaxweyne Trump soo jeedin adag uu hordhigay mas'uuliyiinta dowladda Qatarna ay Xamaas ku wargeliyeen inay jawaab cad ay bixiyaan. waxa loo arkay marka fursad maadaama madaxdii ku sugnay Turkiga iyo Qaahiraba ay halkaasi ay ka dhaqaaqeen oo ay tageen magaalada Dooxa. qorshahan ma ahayn marka wax hadda soo bilowday sidaan arki doono, laakiin markan ayaa loo arkay fursadda ugu muhiimsan ee lagu bartilmaameedsan karayo mas'uuliyiinta xoogagga. ilaha dhanka amniga waxay sheegeen marka maadaama madaxdu halkaasi ay wada joogeen oo sidaani oo kale in lagu helaa fursad ay dhif iyo naadir ay tahay in duqeynta lagu soo beegay qorshuhuna uu ahaa in halkaasi lagu beegsado. ay sheegayaan oo warbaahinta Israa'iil iyo warbaahinta Carabtaba ay baahinayso weerarka ugu weyn waxaa diiradda lagu saaray guriga Khaliil al-Haya oo ah madaxa wafdiga wada xaajoodka, laakiin waxaa lagu warramayaa kulankii hoggaanka Xamaas inuu ka dhacay guri kale oo inta badan uu degi jiray Ismaaciil Haniya. labada gurina gantaalla ayaa lagu garaacay, weliba midkood si daran ayaa gantaalla loogu garaacay. Ismaaciil Haniya Allah u naxariistee gurigaasi mararka qaarkii kulamo gaargaar ayuu u adeegsan jiray, taasoo laga yaabo marka inay sababtay in inta badan hoggaanka Xamaas ay ka badbaadaan weerarka. waxaana la xaqiijiyay 2 mas'uul oo xoogagga iska caabinta ka tirsan inay halkaas ay ku dhaawacmeen, halka wiilka Khaliil al-Haya iyo xoghayntiisii lagu dilay weerarka. wararku waxa intaas ay ku darayaan marka in go'aanka weerarka lagu fulinayo si rasmi ah qalinka loogu duugay ugu yaraan 1 saac iyo bar ka hor weerarka. sida warbaahinta ay baahisayna ilaa 10 gantaal ayaa goobta lagu garaacay, dhowr diyaaradood ayaa ka qayb galay inkastoo aanan la sheegin diyaaradahaasi iyo halka ay isticmaaleen, yacni hawada ay adeegsadeen. waxaana xilligaasi socday dhoolatus ay diyaaradaha dagaalka Qatar iyo diyaarado kale ay sameynayeen. marka suuragal ma tahay marka in diyaaradahaasi lagu dhex qariyay kuwa howlgalka fulinaya maadaama Israa'iil ay sheegtay in 15 diyaaradood ay gaarayeen. waxa laga yaabaa inaad isleedahay 1 ilaa 2 diyaaradood waa suuragal in lagu dhex qariyo diyaarado, laakiin 15 diyaaradood aysan suuragal kula ahayn. laakiin waxaan aan dib u laabano. sanad ka hor Israa'iil waxay si cad u sheegtay inay beegsan doonto hogaamiyaasha xoogagga iska caabinta ee Xamaas haddii ay ku sugan yihiin Qatar ama meelo kale. waxaana arrintaasi xaqiijiyay madaxa sirdoonka ee Israa'iil oo sheegay inay qorsheynayaan in hogaamiyaasha Xamaas ay ku beegsadaan meel kasta sida Turkiga, Lubnaan iyo Qatar. sidoo kale waxaa jira cod sir ahaa oo banaanka yimid bishii December 2023, waa 3 bilood kadib weerarkii duufaanta Al-Aqsa markii uu bilowday. codkaasi qarsoodiga ahaa waxaa laga helay Roner Bar, madaxii hay'adda sirdoonka ee Shabaag, isaga oo sheegay in Israa'iil ay fulin doonto waxa uu ugu yeeray Muniikhda cusub, yacni weerar ay sanadkii 1972 ay ka fuliyeen magaalada Munich oo dalka Jarmalka ah oo ay doonayeen inay ku bartilmaameedsadaan Cali Xasan Salaama, madaxii sirdoonka ee Falastiiniyiinta. qorshahaasi marka waxaa bilow u noqday dilkii Allah u naxariistay Saalax al-Caruuri oo Lubnaan lagu dilay bishii January 2024. waxaa ku soo xigay weerarkii Ismaaciil Haniya lagu dilay oo ka dhacay gudaha dalka Iiraan. kanina wuxuu ahaa kii saddexaad marka.
majalada Foreign Policy bishii January 2024 waxay saadaalisay in Israa'iil aysan ku ekaan doonin Lubnaan iyo Iiraan, balse sidoo kale ay doonayso inay wajahdo hogaamiyaasha Xamaas ee Qatar iyo Turkiga ku sugan. Qoraagu wuxuu sheegay marka xilligaasi in Turkiga loo arkay inay aad u adag tahay in weerar sirdoon laga fuliyo marka la eego feejignaanta sirdoonka Turkiga iyo xiriirka Israa'iil iyo Turkiga, inkastoo hadda uu aad u xumaaday. sidaa daraaddeed marka Qatar ma la dhihi karayaa waxay noqotay mid u nugul. Qatar waxay martigelisaa xafiiska siyaasadeed ee xoogagga iska caabinta ee Xamaas. waxay si buuxda awood ugu leedahay wada xaajoodyada. Maraykanka Qatar saaxiib dhow ayuu leeyahay, laakiin aan dib kuu xasuusiyo hal eray oo horey uu u yidhi Antony Blinken, wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka. wuxuu dhowr jeer sheegay in dowladda Qatar ay waajib ay ku tahay inay dib u eegto joogitaanka hogaamiyaasha Xamaas, sababtaa waxay diidanayeen heshiisyada. xilligaasi Antony Blinken wuxuu doonayay madaxda Xamaas in laga soo eriyo dalka Qatar. waxaa la isweydiinayaa marka, kadib weerarkaasi oo ka dhacay caasimad carbeed oo magaalada Dooxa oo la beegsaday, maxay dowladaha carabtu samayn doonaan? haddii aysan midoobin, maxaa dhici karaya? ma waxay noqon doontaa arrintan fariin cad oo ah in Israa'iil iyo xulafadeeda aysan tixgelin doonin midkoodna dowladaha carabta, oo waxa ay doonaan miyay ka samayn doonaan? waxaa la isweydiinayaa mowqifka dowladda Masar. inkastoo uu cad yahay war-saxaafadeed ay soo saareen, haddana Masar ayaa hadda noqonaysa meesha keliya ee dhexdhexaadin ahaan la isugu imaan doono, maxaa yeelay Qatar way joojisay. taasi sooma noqon doonto culays kale oo dowladda Masar ama Qaahiro soo fuulaya, maadaama suuragal ay tahay haddana in lagu beegsado mas-uuliyiinta xoogagga iska caabinta wadahadallada ku matalaya. aan u soo laabanno khudbaddii uu jeediyey ra-iisul wasaaraha dowladda Qatar, ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar. inkastoo khudbaddiisa qaybaha ugu horreysa uu kaga hadlayo sida ay wax u dhaceen, aan eegna qaybta ugu muhiimsan oo ah qaybta dhexe. wuxuu sheegay dowladda Qatar inay ku celinayso inaysan marnaba aqbalaynin wax la xiriira ku xadgudubka madax bannaanida ama amniga dhuleed ee dalkaasi Qatar. wuxuu yidhi marka oo uu raaciyey hadal u muuqanaya inay aargudanayaan. nooca aargudasho ma uusan sheegin, laakiin aan kula wadaago. wuxuu yidhi waxay Qatar u aragtaa inay xaq u leedahay inay ka jawaabto weerarkan. hadda waa waxay Qatar u aragtaa inay xaq u leedahay inay ka jawaabto weerarkaani cad. waxaana amar cad uu ku bixiyey amiirka dalka Qatar oo sheegay in amniga muwaadiniinta iyo dadka degan uu yahay mudnaanta koowaad. sidaasi daraaddeed laga bilaabo maalinta biri ah waxaa bilaaban doona dib u eegis buuxda oo ku saabsan siyaasadaha iyo habraaca si loo hubiyo in falal noocaani oo kale ah aysan soo noqon. sidaas ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda. wuxuu hadalkiisa ku daray waxaa intaa dheer in la sameeyo guddi sharci ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Mohammed Al-Khulayfi, kaasoo qaadi doona dhammaan tallaabooyinka sharciga ah ee looga jawaabayo weerarkan. wuxuu intaa ku sii daray weerarka Israa'iil ee maanta lagu soo qaaday dhulka Qatar wuxuu caddeyn u yahay argagixiso dowladnimo oo uu wado ninka la yiraahdo Netanyahu. ficiladiisa joogtada ah ee lagu carqaladaynaya amniga gobolka waxay muujinayaan fariin cad oo ah in gobolka laga dhex wado siyaasado aan xasilooni lagu gaari karin. waa halkan u socda marka qaybta kale. wuxuu yidhi Netanyahu laftiisa wuxuu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu dib u qaabeeyo bariga dhexe. haddaba fariintani ma tahay in sidoo kale dib u qaabeyn uu doonayo inuu ku sameeyo khaliijka? hadda su-aasha waxaa isweydiinaya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar, waana fariin uu u dirayo dowladaha khaliijka. wuxuu yidhi waxaan aaminsanahay in maanta la joogo wakhti go'aan uu qaadan karo oo gobolka dhammaantiis uu kaga jawaabayo tallaabooyinka arxandarrada ah. ficilada Netanyahu ma muujinayaan wax kale oo aanan ahayn nacasnimo siyaasadeed iyo danaynta shakhsiga ah, yacni danayntiisa shakhsiga ah, wixii isaga uu rabo oo keliya inuu sameeyo. marka wuxuu su-aashan duldhiga marka waddamada khaliijka oo si dadban uu leeyahay waxaa la jooga xilliga aan midnimo samayn lahayn oo aan ka jawaabi lahayn fariinta ah waxaan dib u qaabeynayaa bariga dhexada cusub ee Netanyahu uu ku fikirayo, maadaama dantiisa siyaasadeed iyo tiisa shakhsiga ah uu fulinayo Netanyahu. annagana maxaa inoo diiday? tanin waa sababta aan warbixinta ama codka ra'iisul wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ahna ra'iisul wasaaraha dalkaasi aan u soo qaatay. waxaa intaas sii dheer, madaxweyne Trump warbaahinta la hadlay wuxuu yidhi waxaan u mahad celinayaa amiirka iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Qatar taageeradooda iyo saaxiibtinimadooda kala dhexaysa Maraykanka.
qatar shaqo adag ayay qabanaysaa, waxayna qatar u qaadanaysaa ama ay riski ugu bareertay inay dhexdhexaadiye ay noqoto iyadoo maraykanka kaashanaysa. waxaan amrayaa buu yidhi Marco Rubio, wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka, inuu soo gebagabeeyo xiriirka wada shaqayneed iyo heshiisyada dhanka amniga ee dowladda qatar, yacni inta dhiman aan u saxiixno. aragtidaadana la wadaag. Faisal Daweri ayaan kusoo gebagabaynayaa, wuxuu yidhi qorshaha la doonaya in lagu dilo mas-uuliyiinta xoogaga iska caabinta ee qatar ku sugan ma uusan dhicin buu yidhi iyadoo maraykanka uusan meel marin. Trumpna aragtidiisa kama marna halkaas iyo go-aankiisa waa sida yacni wixii ku dhacay dowladda Iiraan oo kale, oo yacni loo qabtay waqti kama dambaysta kadibna weerar lagu qaaday. marka tanin waa tii oo kale, yacni wax ma dhaanta ayuu yidhi Faisal Daweri, khabiir dhanka militariga ah. adigu maxay kula tahay? waan ogaa inaan ku dheeraado warbixintan, laakiin aragtidaada nala wadaag. waad mahadsan tahay.